gudaha jaamacadda Hargeysa waxaa maanta loogu dabaaldegay dufcadii 19aad ee ka qalin jabisay kanaab laxda jaamacadda oo tiradoodu ay dhammayd 1419 arday ahayna ardaydii ugu badnayd ee ka hana qaadatan iyo markii la unkay dhidibadana loo taagay jaamacadda Hargeysa waxaa xafladaasi ka qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Bihi Cabdi xubno ka tirsan golaha wasiirada barasaabka gobolka Maroodijeex maayirka caasimadda Hargeysa mas'uuliyiinta xisbiga talada dalka ee kulmiye gudoomiyaasha hay'adaha dawladda qaar ka mid ah ganacsato iyo marti sharaf kale oo kala duwan oo lagu casuumay xafladaasi gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa Dr. Maxamuud Yuusuf Muuse ayaa ka waramay sooyaalka taariikheed ee jaamacadda waxa uu shaaca ka qaaday tirada ardayda sanadkan ka aflaxday jaamacaddaasi markay buuxiseen dhammaan shuruudihii laydinka baahnaa inaad ku qalin jabisaan kadib markii sanadka jaamacaddu ansixiyay qalin jabintiina taariikhdu markay ahayd 28kii bishii 8aad 2022 aniga oo raacaya qodobka 26aad faqradiisa labaad ee charterka jaamacadda anigoo raacaya qodobka 7aad faqradiisa 16aad ee sanad dhigisoosha jaamacadda waxaad mutaysataan inaad ku qalin jabisaan digriyada kala duwan ee mutaysateen waad qalin jabiseen habaliyo aqoon-yahano iyo mas'uuliyiinka kala socday jaamacadda laga leeyahay dalalka Itoobiya iyo Turkiga wada shaqaynna la leh jaamacadda Hargeysa ayaa iyaguna waxa ay tilmaameen waayo-aragnimada iyo aqoonta ay isweydaarsadaan jaamacadda Hargeysa waxa kaloo ay hambalyo iyo bogaadin u direen ardayda iyo waliba mas'uuliyiinta ku soo tabcay gaar ahaan maamulka jaamacadda iyo waliba macallimiintii wax soo baray maayirka caasimadda Hargeysa iyo Cabdirashiid Abshiil oo halkaasi ka hadlay ayaa dardaaran iyo dhiirigelinba u diray ardayda sanadkan ka baxday kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Hargeysa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Diriya Toorna ayaa hambalyo iyo bogaadin waxa uu diray ardayda iyo waalidiintii ku soo tabcay kaliya waxa maanta halkan aynu isugu dhibi inaynu markhaati ka noqono qalin jabinta ardayda oo aynu nidhaahno habaliyo ardayda qalin jabinaysa kuwa soo socdana ee weli dhigtana iyagana waxaynu u rajaynaynaa inay sidaas oo kale iyagana maalin aynu isugu iman doono qalin jabintooda laakiin hal erey baan doonayaa inaan idhaahdo jaamacadda marka aan jaamacad ka baxo ama aan first degree qaato ama aan master degree qaato ama PhD isbeddelkaygaasi aan isbedelay tacliintayda abartay wayna wax soo kordhiso qofku halkuu joogo iyo masabku hayo wax ku soo kordhin karaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa hambalyo iyo bogaadin waxa uu diray macallimiinta waalidiinta iyo ardayda waxaan hambalyeynayaa ardayda qalin jabisay u badan hablaha waxaan hambalyeynayaa oo bogaadinayaa waalidkii ku soo tabcay iyo macallimiintii iyo jaamacadda iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay ku tacabka dhalinyaradaas inay maanta halkaas soo gaaraan waa bogaadinaya dhalinyarada waxbaratayna waxaan ku dhiirinayaa inay qaataan dardaarankii dadkii iga horreeyey halkan ay ka jeediyeen ee af ingiriisi lahaa ee af soomaali lahaa ee brofesaradii siiyeen inaad ku dhaqantaanna waan ku dhiirigelinayaa intii la hamreeyay dadkii hore yiraahdeen baan ku dhaafayaa madaxweynaha oo sii watay hadalkiisa ayaa ku dhiirigeliyay jaamacadaha dalka inay cilmi baarsiyo aqooneed ay ka sameeyaan xaaladaha kala duwan ee dalka gaar ahaan arrimaha siyaasadda abaaraha soo noqnoqda iyo meelaha kale ee gufaynta iyo aqoonta u baahan sanad kasta oo ay jirto doorasho ay soo dhawaato waxay caado u leedahay koob iyo shaqooyin iyo muran iyo dhibaato mudaharaadyaa dhacay waynu baajin karaynaa kuwaasa tale naga qabaactay khasaaraynu kala kulan dhimasho dhaawac xeer cayb qaalayu cadhoodaan waa dhibaatay imaan karta waxayna tahay maanta dhammaanteen waxaynu ognahay inaynu intaasi inoogu filan tahay waayo aragnimo iyo khibrad
mar dambe inaynaan xaalka muranka siyaasiga halkaasu kala gaarsiinin tii hore aynu ka xunahay kuwa dhintana allah u naxariisto kuwa dhaawaca allah inoo bogsiyo khasaarihiina gaaraan aynu uga weeriyo laakiin dan uwalaynayo meel joogna aynu ka dhibran qaadana waa qaladka aynu qalayaynaan ku noqonin waxaynu ku murmanaa waa wax wanaagsan maalmaha waxa aad loo maanay qodada tijaarti midiyo beryahan aad loo warfinaya horta waxaa loo qodada tijaarta annaga taas maa maalumana haysatay haddii maanta walaalayu warfiyey ee adkaystoo diimeerayaasha ninka yaayaaba haddana waxaan soo diinaynaa Somaliland hadduu qofku 10 goor qaamiyo uu 10 goor wax taro uu 10 kaalmood wada ka baxo oo maalin qosta adugu maanta ma wax loo reebayna wixii soo leeyahay maaymiya tijaarta ninka maadayo waxaan ku sheegayaa dalkaas oo soo soo وين حكينا وأنا هبنا لكن ذلك الأرسل هي أولا خربت قيمة أول madaxweynaha ayaa cadeeyay sida ay muhiimka u tahay inuu ilaaliyo sharciga iyo dastuurka dalka u yaala maadaama uu yahay mas'uulka dalka ugu sareeya أنا واحد قبل وأنا كستان إيه كستان وش غير قاطع وأنا ده وين أي نبتة يتبع وين أصلا طلع markii meesha aan kitaabka gacanta leeyahay waxa la yiraahday oo loo ka ahaa inaad dastuurka raacay inaad dhaxu ahaayeen dhammaan Soomaaliland haddana labadiiba ilaaliyo xajiyay oo Soomaaliland aan ku dadaalay intii bini'aadamada dhaxu ahaado oo taariikh weyn ka muuqato iyo haddaan dastuurkiina warqolkaas oo dastuur hebel markaa raacayna oo dastuurka u joogay ka daa oo walaalahay meelaheeda qaado deeano ma qadar waxay u dhaarsan dastuurka xajinaya haddaan dastuurka diiday alaabta bilaad laakiin waxaan doonaynaa dadka inka soo baxaya ee dhalinyarada ee shaqada qabanaya ee badankooda imika heer wasaarado ku jaamacado ka baxay iyo heer meeyar iyo heer departmento inaad ku adkaysataan si dalka la isugu hayo shar markaas dawlad wanaagga la shaqeeyo madaxweynaha ayaa codeer waxa uu ku sheegay in dhismaha suuqa Wahen ay intiisa badan ay ka qayb qaateen dawladda iyo ganacsatada Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu ka deyriyay kaalintii dhaqaaleed ee dalalka horumaray ay ka geysteen waxa uu shacabka ugu baaqay inay isku duubnaadaan isla markaana dalkooda ay aaminaan waxaanu niri waa dhisanayna Wahen iyo warwarin hadday ilaahay inuu soo kaashano cidina caawinaysa waa u mahadnaqayna hadday cidina soo caawiso kaliya baa mid sharciga waa balan qaaday way mashhuulina boqolkiiba boqoliyadeen walayaashii deegaanka ee soo baxay ee magaalooyinka waaweyn iyo kuwa kale badankooda boqolkiiba 90 hore kala inay u shaqeeyeen hab casri ah wadaninimo ah oo ay dhig cusub soo kordhiyeen maamulkii taasina waxay muujinaysaa jaamacadaha waxay soo saarayaan iyo mustaqbalka ay yeelanayso Somaliland iyagana waa mahadnaqaynaa waan dhiirigelinaa maamulada dowladda hoose inay intaa ka sii xoojiyaan lacagta badankeeda markiiba 90 waxaan u malaynayaa wax dowlad ah oo ina caawiyey wax dowladayna soo gaaray kama badna 3 bilyan weliba kuwa u fikirsan bayna soo gaarsiiyey dowladaha soo gaarsiiyey madaxweynaha ayaa shahaadooyinkii guddoonsiiyay ardaydii ugu sarreysay sanadkan kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda Hargeysa ay bixiso ardaydii ugu sarreeyay Axmed Saki Daahir Xasan warbaahinta qaranka jaamacadda Hargeysa